aroor wanaagsan dhagaystayaal meel walbo aad nagala socotaan ku soo dhawaada radio barkulan oo hawada idin soo marinaya barnaamijka xulka wararka maalinta koowaad ee bisha September waa maalin Sabtiya barnaamijka xulka wararkana waxa idin la socodsiinaysa anigoo ah Fawziya Umar Barre aan ku bilaabo aayadda Quraanka Kariimka A'uudu billahi minash shaytaanir rajiim Bismillahir rahmanir rahiim Innamal mu'minuuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم waxaan naga dhageysanaysaan efemyada magaalooyinka Muqdisho Boosaaso Gaalkacyo iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaad sidoo kale si toos ah uga dhageysan kartaan satellite-ka Tycom 5 iyo barta internet-ka barjitin.com hagaag dhageystayaal qodobadaan idinkugu haya barnaamijka xulka wararkana waxa ka mid noqon doona qurbajoogta Soomaalida ee dalka Mareykanka oo rajo wanaagsan ka muujiyay isbeddelka guud ee ka socda dalka ardayda Soomaalida ee dalkaasi Pakistan ayaa iyaguna sheegay inay aad u soo dhaweynayaan doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxaad kaloo ku dhageysan doontaan waa maxay kaalinta warbaahinta ee ku aadan isbeddelka dalka ka socda inay ka qaadato qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xulka wararka diiwayna raali ka noqdo ansa ku horeeye qurbajoogta Soomaalida ee dalka Mareykanka ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya isbeddelka guud ee ka dhacay dalka Maxamuud Saciid waxa uu ka mid yahay Soomaalida Mareykanka ku nool wuxuuna ku faraxsan yahay in Soomaaliya ay ka dhalato dawlad rasmi ah asagoo sheegay inuu aad ugu weyn yahay inuu ka mid noqon doono dadka ugu horeeya ee dalka iman doona marka dawladda rasmiga ee Soomaaliya ay cageeda isku taagto waana kan isaga oo marka hore ka hadlaya isbeddelka guud iyo waliba inta sanadood ee uu ku noolaa dalkaasi Mareykanka hadda anagu waxaan ku noolahay wadanka North America magacayga waxa la yiraahdaa Maxamuud Saciid Muuse waxaan ahay ama dhigtaa ama ahay hadda Master Candidate of Ohio Dominican University Master of Education Somalia waxaan ahaa dadkii markii qabtooyinka dhixin wax yar ka hor oo dagaaladii saddexan jaamacadda ka baxay kulliyadda Lafoole kadibna ahigaas intaas soo socday 22 sano waxaan ka mid ahay community-ga Soomaaliyeed ee degan gobolka Ohio ee waqooyiga America waan gartay Maxamuud Saciid sida la socotaan qurbajoogta dalka Mareykanka wadankii waxa ka socda isbeddel xoogan oo laga soo bilaabo bishii Agoosto ilaa haatan dastuurkii la ansixiyay baarlamaankii la dhaariyay haatan la doortay gudoomiyihii baarlamaanka tii madaxweynahana loo socdo bal sideed u aragtaan ama aad la socotaanba si fiican bismillaahir rahmaanir rahiim si fiican ayaa u aragnaa si fiican buu noo socotaa aadna ugu hambalyeynaa new government-ga hadda cusub oo bilaabatay taasoo soo socotay muddadii sanadadii ugu dambeysay hirgashay ama la hirgeliyay roadmap-kii kasoo bilowday principles garow 1-2 Gaalkacyo Addis Ababa ilaa Muqdisho soo galay kaasoo keenay in roadmap-ka lagu guuleysto lagaga baxo dawladda ku meel gaarka loona gudbo dawladda federaalka Soomaaliyeed waxaan qabaa inay shaqeyn insha Allah bismillahir kariim aan ka rajeynaa inay shaqeyso waan 22 sano dadku hadday soo arkeen dhibaatadii iyo dawlad la'aantii inay maanta ka dhigsan yihiin inay dawlad Soomaaliyeed oo calankeedu taagan yahay oo la aqoonsan yahay helo waxaan u hambalyeynaa gurubyadii waday roadmap ka soo shaqeeyay oo ra'iisul wasaaraha iyo dawladdiisa oo tension weyn geliyay waqti badan la soo geliyay soona gaarsiiyay in dawladdii laga saaro
kumeel gaar looguna gudbiyo dowladda federaalka soomaaliyeed oo hadda guddoomiyaheedii baarlamaanka la doortay bilowgii wiigan haddana la sugayo wiiga soo socda in ay doorato madaxweyne dowladda federaalka soomaaliyeed. waan gartay sida aad ogtahay hadda waxaa la dhaariyay baarlamankii waxayna doorteen guddoomiye maxaad is oran kartaa marka haddii aad saadaasha fiiriso baarlamankani cusub way soo kordhin karaan ama ay kaga bedelan yihiin kuwii hore ee inta burburka uu jira lasoo dhisayay? waxaan qabaa wax badan bay kaga duwan yihiin. waxay kaga duwan yihiin kow waa dad marka hore aqoon leh lasoo xulay islamarkaasna si dadkii inkastoo ay waxkan 4.5 uu qabi yahay haddana dadkii oday dhaqameedyo iyo dad isu tegay ay soo xuleen kadibna laguma ekaalinta keliya laga jeegareeyey oo background jeegooda la baaray lana isiri dadkii u qalmay oo magaranaysa aan dembi horogala shuruudihii ka baxay ayaa soo gudbay. waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwa hawshooda qabsada horena u socodsiiya Soomaaliya. waxaan aada ugu hambaliyeenayaa reebidii laga reebay qabqabalayaashii dagaalka iyo dadkii dagaal oogayaasha ah kuwaasoo 22 sano la haray ummadda Soomaaliyeed una kala qaybiyey gobollo iyo qabaa'il dhiig badan daadiyay. waan gartay idinka ka qurba joog ahaan haddii aad fiiriseen marka ma isleedihiin dadkan waxbay soo kordhin karaan ama dadka dibadaha ku maqan oo kale waxay gelinaysaa hididiilo ah inay dib dalka ugu soo noqdaan maadaama idinku dalka banaanka aad ka jirtaan? si fiican walaale waan aaminsanahay inay wax qaban karaan horena u socodsiin karaan dadka iyo qurbaha joogana hididiilo badan iyo jacayl badan ayaa noo qabanaya markaan aragno dowladdii iyo shaqaynaysa dalkii oo shaqaynaya iyadii oo magaranaysaa wadankii la isu gudbaayo oo uusan kala xirnayn oo xayndaabidii la kala dhigay ilaa 1991 yaalay laga qaaday oo ay iskooda isaga baaba'aan oo u qaadnaan dowlad goboleedyaduna ay sidooda u shaqeeyaan gobol walbana uu ahaado gobol u madax bannaan federaalnimadiisa dowladda central oo dhexena ay oo maamushana ay jirto. waxaan rajaynaynaa oo kale inaan kuna taageerinaa qurba joogta inaan ka qayb qaadano maadaama aanu aragnay dhibka ka jira qurbaha dadka carruur ku haysta ayaa dareemi kara. sidaa awgeed waxaan rajaynaynaa inaan iyadana kala qayb qaadano horumarka iyo developmentiga waddanka. bal haddii aad saadaal guud bixiso siyaasadda guud ee dalka ka socota markii aad eegto ma isleedahay Soomaaliya dhibaatada ay ku jirto waa laga bixi doonaa? bismillahi raxmaani raxiim waxaan qabaa inay ka bixi karto haddii la helo dad daacada is-aaminsan oo ka duwan kuwii hore. waana filayaa inay yihiin kuwii ugu horeeyay hadda la doortay dadkii hore ka duwan 22 sano dadka horboodayay inay dad aqoon leh dad westernka badanaaba ka tegay dad waxbartay baa ku jira professoraa ku jira dad dhalinyaraha baa ku jira dad aqoon leh baa ku jira. marka waxaan qabaa inay liid garayn karaan oo magaranaysaa ay wax isbedel weyn ku samayn karaan dowladda soo socota haddii ilaahay uu la garab qabto. waxaan rajo weyn ka qabnaa inuu ku soo baxo. annaga waxaan jecel lahay madaxweyne western inuu soo baxo Maraykanka dhinacyo ka tegay oo aan afgaranayno. hase yeeshee ilaahay horta ka dhigo mid wanaagsan. waxaan jeclaan lahay inuu kusoo baxo nin aqoon leh oo qalma hogaamin kara waddanka kana saari kara dhibka maanta uu ku jiro oo u qalma inuu haddana international community-ga inuu ka shaqayn karo isku xiri karo iyo waddanka. qof ma cayimanayno anagu ma lihin laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama aqoon-yahano badan isu yimaadeen oo ka kala yimaadeen ilaa Europe, Asia ilaa Australia in ay isu tagaan dib isugu noqdaan iyagoo aan ku salaynayn wax qabiila ay doortaan qof la isku raacsan yahay oo loo malaynayo ama inuu ka bixiyo dhibaatada waddanka maanta haysata xaaladda ay ku jiraan wax isbedel weyn ka sameeya taasoo ay dadku dareemaan in dowladnimadu ay ka wanaagsan tahay dowlad la'aanta iyo dowlad xumo. sidaa awgeed qofka haddii uu leeyahay aqoon ku filan iyo experience wuxuu keeni karaa inuu liirgarayo waddanka
isaga oo cadaaladana ilaalinaya aad baan ugu faraxsanahay aniga kula hadlaaya sanadkii muddo 22 sano ah 2011 ayaan wadanka ku laabtay ilaa xilligaasna geediga aan baxay waa iska xiranahay wadanka waxaan qabaa meesha ugu amaanka xumi inay ka fiican tahay dhulka aan joogno ma aha inay kaga fiican tahay dhaqaale iyo magaciisi laakiin waxyaabo badan oo soo jiidanayo oo wadankii markaad aragtid qurbaha tigtid ama muddo badan ku noolay dhibaatooyin badan aad aragtid 10 iyo dhowr sano ayaan hadda community schools u shaqeynaya iskuulada public schoolska wadanka Mareykanka ilmihii ayaan arkaa waan ku dhex jiraa muddo dhowr iyo 10 sano waan ku dhex jiray qofku wuxuu dareemi karaa dhibka marka uu dhibka la qaybsado ama ku dhex jiro ilmaha jiilka yar soo koraya xaqiiqadii waxaad arkaysaa ilmo yar oo haba yaraatay aan garanayn xitaa idan meelay ka yimaadeen marka waxaan aad u jeclaan lahaa aan kuna boorinayaa dhammaan qurba joogtu inay u diyaar garoobaan dhulkooda inay ku noqdaan wax ka qabsadaan dadka kaliya oo culture-koodii easy u dhameeyey muddo 10 sano ayaan nahay ama 20 sano waxa jooga dad qarni jooga iyo ka badan isla markaasna luqadoodii ku hadlaya diintoodii haysta culture-koodina haysta innaga waxaa hadda laga helayaa dad aan diintiina haysan culture-kiina oo mustaqbal luqadina aan garanayn marka waxaan aad u rajaynayaa in qurba joogtu ay dareemaan dhibka ka jira si ayna ku noqdaan wadankoodii kana qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta wadanka kaasina wuxuu ahaa Maxamuud Siciid oo isagu kamid ah qurba joogta Soomaalida ee ku nool dalkaasi Mareykanka oo waramayay idaacadda Barkulan isagoo ku sugan magaalada Ohio waa gobolka Ohio Allah yow dadkii adduunyada daasano qaxootiya ma helaan dareero